واتهاي عبد القادر حسن دوي in badan waxaad ka shaqeynaysay dhalinyarada sidii ay u yeelan lahaayeen kulamo ay arrimahooda uga tashanayaan bal waxaad sharaxaad kooban ka bixisaa fahanka dhalinyarada xilligan ee ka qaybgalka siyaasadda 5 sano wadanka ugu dambeysay siyaasadiisa waxa ku jira waxa waaye dadka aabayaasheen iyo adeerayaasheen way ku maadsan yihiin way dadaaleen laakiin waxa jirta waxyaabo badan oo qofka dhalinyarada uu dareemayo dadka waaweyn ay is dareemeen waxa weeye dhammaanteen mustaqbalkeeni way waxa ma taqaanaa laga wada hadlayo goobaha go'aan gaarista laga sheekeynayo waxaan rabnay baarlamaanka ma taqaanaa saddexaad baa imika kii saddexaad baa actually hadda shaqeynaya waxay ahayd 70% wadanka haduu dhalinyaro yahay issue kasta mawduuc kasta oo baarlamaanka la keeno dhinaca ama dimensionka laga eegayo inuu noqdo waxaan mustaqbalka dhalinyarada muxuu saameyn inta leeg ku leeyahay muxuu wanaajinayaa muxuu saxumaynayaa waxa miisanay taa ma dhicin marka in dad badan oo dhalinyaro aad aragtaan oo doonaya inay ku biiraan goobaha go'aan gaarista wadanka waxa keenay waxa weeye dadkaas oo ka danqaday u baahday isiri armaati ma taqaana idinku inta meesha gashaan aad ka mid noqotaan dadka wax saxaya marka dhalinyaradu Soomaaliyeed waxa aaminsanahay inay diyaar u tahay in ay dheelaan ma taqaana kaalintooda inay ma taqaana ka mid noqdaan goobaha go'aan gaarista oo la yiraahdo qofkan dhalinyarada Soomaaliyeed ka tirsan waxa faa'iido ugu jirta go'aamada soo baxay maxaa khasaare ugu jirta dawladda hadda xiriir la yeelato cid maxaa dhalinyarada Soomaaliyeed faa'iido ugu jirta haddaan dhaqaalaheena ma taqaana wax noo soo degayaan ama qaad ha noqoto ama daawo ha noqoto saameyn intee la eg bay ku yeelanaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed haddii shirkad lagu wareejinayo dekadaheena mid ka mid ama airportkeen maxay faa'iido u keenaysaa dhalinyarada shaqadii ma u sameynaysaa wadankan aan dhaqaalahayga ma taqaana ku aaminayno ugu yaraan qofkeena xanuunsan fiisa ma taqaana on arrival ma heli karaa marka waxa aaminsanahay in odayaasha ama dadka siyaasadda iminka ku jira ay ka hareen ama ka gaabiyeen kaalintii ahayd in laga eego wax walba dhinaca dhalinyarada iyo sida wadankani uu mustaqbal wanaagsan u heli lahaa waxaan rabaa inaad si kooban u sharaxdo fahanka dhalinyarada ee xilligan doorashada dalka iyo siyaasadii halka ay marayso halkee maraya aniga waxaan ka mid ahay dadka raba inay ka mid noqdaan baarlamaanka dadka dhalinyarada Soomaaliyeed si ka weyn sidii hore bay u danaynayaan because cid walba ama xildhibaan kasta waxa uu tartamay ugu yaraan hal qof ama laba qof oo dhalinyaro oo doonay inay ka mid noqdaan marka anaga dhalinyarada waa iska warhaynaa ay saaxiibka Cabdi Qaadir oo kale iyo rag kale oo dhalinyarada aba waxa weeye ujeedkaygu ma aha inaan anaga shakhsiyan soo baxno laakiin waxa waaye dadka dhalinyarada ee dastuurka wadankan uu xaq u siinay inay ka mid noqdaan aqalka baarlamaanka tusaale kale dastuurka Soomaaliya wuxuu qabaa qof kasta oo 25 sano jira ama ka weyn inuu xaq u leeyahay inuu noqdo xubin baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan soo waxa waaye horta xuquuq asaasi ah oo qof walba uu leeyahay oo damac ku jira ama hami ku jiro marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxa aaminsanahay inay soo jeesatay in la joogo waqtiga ay dhihi lahaayeen ha iyo maya la gaaray waqtiga ay dhihi lahaayeen ha ninkaana rabnaa gabadhaana rabnaa iyo waqtiga ay dhihi lahaayeen maya marka waxa weeye waxa ugu weyn meesha taagan in guddiga doorashada iyo intaqaana golaha madashuba ay si gaar ah u eegaan una dhiirigeliyaan dadka dhalinyarada ah ee dhiiga wanaagsan ee ama aniga ha noqdo ama qof kale oo dhalinyaro ha noqdo maanta in la joogo maalintii la dooran lahaa qof dhalinyaro sababo jira awgood qof dhalinyaro oo wax bartay oo u qalma in ma taqaana la aamino haduu jiro waxa aaminsanahay inuu kaga duwan yahay qofka kale ee da'da weyn qofkan wuxuu leeyahay waxa ay la good heart waxa waaye waa qof qalbi saliim leh because dadkii ma taqaana u soo joogay dawladihii hore iyo dawladaha imika jooga
waxa weeye maskaxdooda waxaa ku jira waxyaabo badan oo maaragtay ay soo arkeen khibrado badan oo walaac iyo mataqaanaa ku keenaya in wixii ay soo arkeen yani waxyaabo badan oo inaga life u arag oo toos ayna u arag bay dadka waaweynaa oo soo arkeen taa waxay keenaysaa markii xalku soo dhawaado in qof walba uu dhaho tii shalay dhacday baa maanta la taagan marka qof walba difaac inuu galo way u badan tahay marka waxaa aaminsanahay laakiin qofka dhalinyarada marka ay dad kale oo dhalinyara oo kala qabiila oo baarlamaankooda jira yimaadaan inay helaan ama yeeshaan common understanding ama fahan guud oo qadiyad dhalinyaro ah halka labadan nin oo waaweyn oo nin walba ninka kala garanayo xaalado badan u soo joogeen ee adag tahay inay wax isku waafaqaan marka taa horta waa ta koobaad su-aasha labaad ee ahayd cidima idin support garaysa ama cidima idin taageertaa ee farxiyo ina weydiisay waxaa aaminsanahay horta haddaad tiraada wasaarada ku taageeraysa uma badno maaha yacni waaqici maaha in wasaaradna taageerto inta wasaaradda u tagna inna taageerto xoogaa waaqici maaha in hay-ad oo mataqaanaa siyaasadda ka madax bannaanna ayna taageerto oo yani personal cabdiqaadir ahaan ii taageerto ama qof kale ay taageerto macquul maaha inay siyaasad guud ahaan taageeraan ma ahane laakiin taageerada rasmiga ah cidda looga baahan yahay waxaa waaye dadka meeshaan fadhiya dadka looga baahan yahay waxaa waaye inta kale inaga maqan ee nala fahanka ah nala mabda'a ah ee aaminsan in dhalinyaradu ay qabato majaraha waddanka sababta aan taa u leeyahay waxaa weeye in maanta waxaa igu hiilin kartaa aniga ama qof kaleba oo aada la kursi tahay dadku kooxba kursi bay wadaagaan marka aniga haddaad i taageerin waxaa muhiim ah inaad taageerto qofka dhalinyarada ah ee kursigaaga u tartamaya see ku taageeri kartaa kow waxa waaye ka mid noqo ergada dooranaysa kursigaas u tag odayga nabadoonka u sheeg inaad rabtid inaad ka mid noqotid dadka wax dooranayo konton iyo kowda ah markii la helo 5 ama 7 qof oo dhalinyaro ah oo aan rabin inay gataan masiirkooda oo aan rabin inay ku tagrifalaan masiirkooda waxaa suurtagala inay doortaan qofkii saxda ahaa ee u qalmi boosashkaas ama kaalintaas